waxay udubdhaxaad uga ahayd Afrika dhoofinta muuska sanooyinkii 1980 ilaa 1990. Soomaaliya dal ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo dhoofinta xoolaha nool iyadoona uu gaaray wax soo saarka muusku meeshii ugu sareysay ee dal uu gaaro dalagiisu. dekada saaka waxa laga dhoofinayaa xoolo ay tiradoodu ku siman tahay 1400 neef. waxaan markaa oran karnaa faa'iido degdega ayaanu ka aragnaa. ariga imika aynu dib taaganahay 110 buu ahaa carafooyinkii hore iminkana 150 buu ayaa la leeyahay hadda 150 baa la leeyahay sababtuna waxa weeye waa minabilo waa loo xidhay 300 oo nin baa xoolaha diri jiray nin kastaba ninka uu yar 50 qof baa u shaqayn jiray carafooyinka markay tahay halkaa mid baa ka iibsanaya halkaana mid ariga waa la kala boobay hoosna wuu dhacay. waxaa ka mid ahaa dalalkii loo dhoofin jiray muuska Soomaaliya Masar oo 33 sano kadib burburkii dalka maanta oo dalagii Soomaaliya maciishadiisu dhulka galay iyadoo rabta inay ka faa'iideysato. toddobaadkii hore ayay ahayd markii magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka ay Masar ka soo dejisay cambe qiimihiisu dhan yahay halkii saxabo $2 halka cambaha dalka ka soo go'a 4 saxabo ay isku qiimada tahay halka xabo ee Masar. 21 September 2016 ayay ahayd Suudaan oo xad wadaag yihiin Masar ay iska joojisay qudaartii ay u soo dhoofin jirtay dalkaas sababo la xiriira badqabka iyo caafimaadka bulshada iyadoona cadaysay in xanuuno badan lagu tuhmaayo qudaarta Masar oo ah qudaar lagu bacrimiyo laguna soo saaro iyadoo la adeegsanayo dawooyin kala duwan. sidoo kale isla toddobaadkii waxa dawladda Liibiya oo iyana ay qudaarta u dhoofin jirtay Masar ay joojisay dhammaan wixii maciishad ka soo gali jirtay Masar. labada dawladoodba waxa ay u joojiyeen qudaarta Masar baaritaan ay ku sameeyeen waa Suudaan iyo Liibiya. ilaa hadda Soomaaliya ma jirto wasaarad baaritaan ku sameysay qudaarta tan dalka soo gashay oo la wadaagtay badqabkeeda bulshada sicirka heerku doonaha gaadheeba. sidoo kale sidee ayaynu ugu laaban karnaa wax soo saarkii beeraha heerkii uu marayay 80aadkii. waa ficil oo idin leh faafitaanka iyo faalladu wax la isfaro maaha ee fogeeya barnaamijka.